السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديال ميل بودافا الدنيا أد كجوكتان كنا سدوا هذا برنامج كوعي ما أنتي وحين فرح سنها إنه مرتين وجوي هاي إنجنير محمود أحمد فاتح وحيننا برنامج كان كسو قاضينا برارجين كأدن waxbarashadii uu dalkani Mareykanka wax ku bartay iyo taariikhdiisa wax qabadka ee dalka Mareykanka iyo waliba dalka Soomaaliya oo waxyaabo badan uu ka soo qabtay asaga oo ka soo shaqeeyay sidoo kale dalka Suudaan, Sacuudi Carabiya iyo waliba waxyaalo waaweyn oo lagu xasuusto ay kamid tahay baad celintii laga sameyn jiray Muqdisho, Marka iyo meelo badan oo lamida goortii la talaalay tiitinka iyo hawlo badan oo aad iyo aad u xiiso badan oo barnaamijkan aynu ku soo qaadanayno tusaale fiican wuxuu noqon doonaa biidnillah dadka wax bartay iyo dadka doonaya inay Soomaaliya wax ka qabtaan sababtoo ah taariikhda markii la akhriyo badana ama la dhageysto waxa laga faa'iidaa waxyaabo badan oo aadan ogeyn waxayna ku horseedaysaa in aad wacyiga aad ku jirto markaasi iyo sidoo kale wax qabadkaaga ay ku soo dhalaalaan sababtoo ah wacyiga wuxuu noqonayaa meesha aad ka imaatay inaad ogtahay heerka markaas aad marayso iyo meesha aad ku sugantahay inaad la socoto iyo sidoo kale mustaqbalka iyo goolasha aad hiigsanayso inay ku qorshaysan yihiin waxaad fulisay mashruucyo badan New York baa kamida tunnelska ama labada nafaqay waaweyn waxyaalaha aad ka fulisay iyo mashruuci biyaha waxa kale sidoo kale jiri doona aan ka sheekeyn doona haduu Ilaahay yiraahdo markaad u gudubtay dhinacan iyo Washington DC 1979 sidoo kale Sacuudiga oo aad ka fulisay mashruucyo badan 1981 sidoo kale dalka Suudaan oo shaqo fiican ka soo qabatay sanadkii 1985 iyo waliba hawlo badan oo noocaas balse waxaan jeclahay qaybahaas oo waliba xiise gooni ah leh wax badan laga faa'iidayo in aan waraysiga qaybtiisa labaad ku soo qabanno injineer ku soo dhow barnaamijka inuu ku faraxsanahay inaad maanta halkan joogto in badan oo dad badan oo daayira iyo kuwa badan bay ka faa'iideysanayaan khibradaada iyo wax qabadkaagaba waa ku mahadsantahay mar kale. Bismillahir Rahmanir Rahiim. waad mahadsantahay saad u sheegtay anigu magacaygu waa Maxamuud Axmed Faatax markii hore waxaan ka tagay dalka Soomaaliya isagoo meesha halkaan u deganeen sanaag iyadoo aan iskuul lahayn marka cadan baan tagay sidii caadada ahaan jirtay quraan iyo diin baan galay hadhowtana iskuul Ingiriisiya baan galay oo wax ka baran jiray ilaa aan ka gaaray GCA ka qaatay Ingiriiska marka intaan hay iskuul ku jiray waxay ahayd berigii ugu horeeyay dayax gacmeedkii ugu horeeyay Ruushka Sputnik marka dadku la yaabay oo la yiri dayax gacmeedku cilmigu ku dhisay waa maxay macallin dhalinyaro ah oo noo dhigi jiray xisaabta iyo sayniska noo dhigi jiray baa wuxuu yiri qofkii raba inuu cilmiga barto halka laguma dhigo laakiin waa library book soo qaadanaysa anoo uu caawinaya marka Ingiriiska berigaas 9 subject baa la dhigi jiray high schoolka cilmigaas buu yiri wax la yiraahdo applied mathematics halka laguma dhigo laakiin haddii rabtid waa qaadanaysa imtixaan baa ku gulaysa anaydan caawinaya library tagay book baa soo qaatay markaan u baahdo mucaawinaan u tagi jiray oo caawin jiray imtixaan baan ku galay waa baas gareeyay applied mathematics marka iskuulka cadan waxa loo jiray Eden College taariikhda aniga kaliya baa jiray qof subjectka isbaray oo qaatay oo ku baas gareeyay GCA waxa la isweydiin karaa waa sanadkee waa 62 weey 62 weey marka cadan baan gurtaa shaqaan bilaabay militariga Ingiriiska Soomaaliya dawladda markay qaadatay oo baan inaan jaamacad galo oo tacliinteeda sii wato shaqadiisa ka tago xamar baan tagay waxa la siiyay scholarship Ruushka tagay Moscow University of Moscow bariga dhalinyaradu ma jeclaan Ruushka waxa dadku jeclaa inta badan haday heli karayaan Ingiriiska London haday waayaan Faransiiska Paris meesha saddexaad waxay Italy Mareykan qofkii meel waayay baa tagi jiray Mareykan aad loo jeclaan marka markay joogsatay Mareykan iyo Ruush Mareykan baa doortay marka Mareykan waxaan imi
September 63 haddii marka dadka kale Soomaalida ah markaas waxbarashada soo baxay ay jeclaayeen ayagu ruush iyo meelahaas maxaa adig ka duway oo u jeclay dalkan Mareykanka Mareykanka jacayl gooniye ma jirin marka waxa jeclaan lahaa marka haddii aan heli karayo inaan England tago marka hadaan England waayo goortaas anigu high school-kaygu wuxuu ahaa Ingiriisi marka Mareykan ba goorta meesha labaad ay ahayd Mareykan waxaan tegay luqad aad taqaano luqadda aan aqaan weeyahay iyo engineering aad doonayay ka helay marka Mareykan Somali bariga scholarship ma uu jirin ruush iyo meelo kale baa badnaa marka USIS baan la kulmay markii ay fureen library-ga xamarka fureen in dhalinyaro baa la keenay jaraa'idka Time magazine Newsweek jaraa'idkaasaan ku aqrisan jirnay Westbourne markaas iyo Soomaalida waxaan u helay 10 scholarship aan u hayaa oo waxa jamciyad baa baadooyo la oran jiray Institute of International Education marka nin dhalinyaro aan sheekaysanay ahay uu ahaa marka wax la sidee loo qaataa dadka marka waxa dadka imtixaan laga qaado marka dhalinyaro anigu cadan baan ka dhalinyaro cadmeedka ma sheegay xamar Ingiriisiga lama aqoon marka dhalinyaro aanu cadan isku niqeen oo badan baa timi imtixaan baa la qaaday wax la qaaday SAT Scholastic Ability Test marka dadkii xamar mid inay kaliya ka galay 10 scholarship bay ahaayeen 6 reer cadmeedkii baa qaatay marka waxa ka baxnay groupkaygaas waxaan ahay baan u maleynayaa afarta kala soo hartay qaad afarta kala laba waxay ahaayeen iskuulka maartay sheekh ay ka soo baxeen Amud berigaas markaas Amud la balaabay moonaya marka laba inaan ka yimi sheekh iyo Amud ka soo baxay iyo 6 reer cadmeeda cadan ka yimi iyo mid Muqdisho markaan baxnay baa dadkaas soo u baxeen dawladdu ma ogeyn marka sharci baa la soo saaray inaan dibadda ay u bixi karin qof aan dawladda soo marin marka waxaan ahayn imtixaan Soomaali qof Soomaali ku helay scholarship ku helay imtixaan baan ugu horeynay ugu dambeynay kadib dawladda qori jirtay qofkii la dirayo dawladda soo mari jiray laakiin waan ugu horeynay oo ugu dambeynay wax imtixaan ku helay scholarship gartay marka waxaad imaateen dalka Mareykan baan haye Mareykan waxa nagu qoray anigu wax lagu qoray Montana State University هو بوزم المنطقة halkaas civil engineering وانا markaas 1963 وسبتمبر 1963 waxaan 4 sanadood baan joogay June 67 baan waxaan leedahay training Vermont hay jidadka inaan la shaqeeyo oo shaqadooda inaan barto engineering experience ku yeesho marka waxaan ku noqday Soomaaliya October 67 marka waxa ay qaatay mashruuc ka soconay United Nations Highway Development Program Soomaaliya laga Soomaaliya marka injineeradu waa yaraayeen waxaan manayaa wax laba inan oo ka soo engineer oo mid iga soo horeeyay dhowr bilood waa xusna saaxiibaan noqonay Cabdisalaam Saxardiid oo iglan ka soo baxay iyo Cabdullaahi Ciise oo iglan ka soo mechanical engineer midna yahay civil engineer marka Mareykan waxaan filayaa wax engineer ka soo noqday ana ugu horeeyay marka waxa markaas inta Soomaaliya aad ku noqoteen oo joogtay hay'adda iyo shaqadaas aad bilowday waxyaalihii aad qabateen oo ugu waaweynaa maxaa kamid ahaa waxa aniga horta shaqadii igu horeysay waxa la ii diray mashruuc jid ka soconaya Geeldoora oo la qoray marka jidkaas oo socona shaqadaas oo soconaysa Mareykan soo aaday iyadoo aan wali la dhamayn baan soo noqday
wax aniga goortaa shaqada la ii dhiibay oo la jidkaas soo u dhammaan lahaa adigu mas'uuliyadda qaado geeldooraan tegey jidku meeshuu maraayay jidka tuglayo dhamcale buu dhinac ka saarnaa marka in tuga la raaciyo uu magaalada gaadho uu buurta sii raaco baa lagu tala jiray marka waa meel ku habboon bay noqon lahayd haddii loo hayo kharaj iyo waqti marka jidkii meeshuu marayay baan ka bedelay jidka dhamcale meeshuu ka dhigo saddex weeg baan halkaa luku marayay markaas waxay December 67 marka jidku wuxuu soo galay magaalada Laasqoray bishii April marka anigu 68 April buu soo galay marka xamar baa ku noqday weeg walba telegram baa iiman jiray jidku meeshuu marayo jidkii magaaladu galay bishii April buu galay Laasqoray magaalada banana May baa la digay xilligaas marka dadka dareenkooda see ahaa jidkan loo sameeyay iyo hawshan isay u soo dhaweynayeen ay ugu faraxsanayeen waa dadku aad awal urba lagu guuri jiray oo markay kuleelaha noqoto gugi dadku jid loo baahnaa buu ahaa marka jidkaas sida loo qabay balowgiisa waxa lahaa dad iska wuxuu qabso dad reer Laasqoray oo geeldoora jamciyad bay sameeyeen geeldoora rodlaya jidka geeldoor la yiraahdo marka lacag bay ka soo diri jireen iska wuxuu qabsay ku bilaabeen hadhowtana markii warshada Laasqoray ruushka iyo dawladdu ku heshiiyeen baa jidkii dawladdu la wareegtay reer Laasqoray geeldoora jamciyadda geeldoora oo cadan laga asaasay baa jidka balowday iska wuxuu qabso gartay markii dambe waxaad ku soo noqotay dabcan wadanka Mareykanka intaadan se ku soo noqon wadanka Mareykanka mashruucyo kala jiray oo Soomaaliya dhexdeeda aad ka fuliseen kuwaas wax nooga tahay marka magaalada Muqdisho markaan geeldoora ka soo noqday magaalada Muqdisho Talyaanigu jidadku ka sameeyo laamiga ahaa waa burbureen jidad laamiya ama daamur ama asfalt baa leeyahay Mareykanka halkan waxaa jiray adigu laba jid oo mashaariic contract lagu siiyay Talyaani company Talyaani Muri la oran jiray laakiin wax dhismo oo Soomaalidu ay qabanaysa ma jirin marka wax laami ka shaqeeyo Soomaaliya ana ugu horeeyay marka shaqadan ku bilaabay waxay jidka Talyaanigu dhisay oo burburay Muqdisho ilaa Jowhar in dib loo kabo kaasaan ku bilaabay hadhowtana jidkan magaalada gudaheeda jidadkii markaas marka mashruucaas awooday madad Soomaali ah kula shaqeynaya mise dad ajnabi ah kula shaqeynaya maadaama qofka ugu horeeyay oo Soomaali ah oo mashruucaas ka shaqeeya waxaan adigu talo markii loo baahdo waxa joogay mashruuc United Nations laakiin Soomaali baa ka shaqeynaysay alaabta iyo wax walba marka kabida xoog iyo marka jidkaas marka la dhameeyo in la sii wado hadhowtana waxa soo galay waxa mashruuca United Nations naga caawinaysay in Soomaaliya jidad isku xidha oo wadanka oo dhan oo laamiya marka waxa ku jiray jidkaas aan iyana suuduudiisa ku qayb ku lahaa waa jidkan Buula Berde ilaa Burco midkaan hore meeqo idinku qaatay fulintiisii adigu wuxuu qaatay adigu sanad alaabta maartay alaabtan haysanay iyo laamiga iyo hadba soo kala go'o waa mashruucaas wuxuu qaatay adigu kabidaas sanad marka jidka inaanu sii wadno Jowhar ilaa Buula Berde marka sida awadeed baa Shiinaha goortaan mashruuca kan Shiinaha Buula Berde ilaa Burco waa 190 kilometer ka qaybtiisa iyo isduudiisa baan iyana qayb ku lahaa marka mashruucaas waxa loo geeyay Shiinaha deeq dadka Soomaalida ah صح marka shiiruhu waa soo markay soo degaan carwada aniga oo ahaa marti contact oo ahaa hadhowtana engineer cusub baa yimi oo loo wareegay oo Soomaali ama Chinese oo Soomaaliya marka shiinuhu iyaga waxay u baahnaayeen oo dhan wati okay mashruucyo kala jiray oo dhinacaan marka iyo Muqdisho laftirkeeda Muqdisho jidka
talyaanigu jidka uu sameeyey oo laamiga ah oo duuga ah waxaa ka mid ahaa jidka isku xidha muuska loo sameeyey oo Jannaale iyo marka jidku markuu ku dhamaanayaa muuska markabta laga saaraya magaalada marka waxa marka halka uu jidku ka soo galo magaalada bacaad baa jira ama inagu waxaynu naanaa dundum ciid buura ah tuurkaas marka jidka tuurkaas soo geli jiro xidhi jiray markaas loo diraa grader baa la yiraahdo mashiin ka riixa de hawl joogta ah bay ahayd sidii baraf laxaaq ayuu noqday marka Mareykan trainingkayga waxaa ka mid ahaa wax la yiraahdo soil stabilization ama dhoobo joojin si loo joojiyo si u socon si loo taago loo joojiyo marka waxaa halka Jannaale waa company beer uu ku lahaa Talyaani magaciisa waxaan malay wax loo yaqaan Cavazzini beer uu lahaa oo weyn buu geed tiin la yiraahdo ingiriiskana waa cactus oo qodax buu leeyahay qodax hadday ku muddo aad u xanuun weyn marka gurigiisa iyo buu ku wareejiyey marka cactuskaas haddii meel ciid ah lagu mudo biyo uma baahna wuxuu ku baxaa sayax marka tiinkaas soo gooyay markii ciidda la riixay Talyaanigii baan loo heshiinay inaanu tiinka qaadano hawlyari uu baxa oo inaanu waanu ogolaaday marka labada dhinacii markii ciidda laga riixay in tiinka lagu beero hadda la fidiyo fikradaas adaa lahaa fikrada ana lahaa oo jidka uu marka ka galo markaas waxay ahayd shaqadaas u bilaabantay April May June 69 kacaankuna wuxuu ahaa October 69 markii kacaanku yimi baad celinta taasaa laga qaatay oo wadanka mashruuci waa la sii waday Soomaalidu ma ogolaatay laakiin badana markii dad badan kula shaqeynayaan oo fikrad fiican oo noocaas oo kale oo dabcan waxbarashada ku saabsan aad keento ama qofku uu keeno dadka la shaqeynaya badana kuma qancaan oo waxa imaato inay ka hor imaadaan oo wixii aysan u cunamin marmar hadda sida dhacdo waagaas Soomaalidu ma dad ismaqlo haye dhahayo ku raacay hamsa waxa kaaga imaaday laftirkeeda xogaa waxa wadamo la soo tijaabiyay talada dad anigu aan madax u ahay bay ahaayeen marna hawsha joogtada waa sida hawsha joogtada oo muuqanaysay oo san labadii bilood lagu soo noqon riixayo idin maal riixayno meel iska joojino geedo ku beero marka dhibaato weyn marka shaqadaas waa kacaan ka hor kacaankii ka faa'iideystay fikradii oo sii hirgeliyay kacaankii baa hirgeliyay maalintii kacaanku qabsaday wadanka qabsaday shir baan ku jiray Addis Ababa African wuxuu ahaa first African Highway Conference waxa shirka maamulay waxa jira International Road Federation oo headquarter-koodu yahay Montreal marka Afrika oo dhan baa la isu keenay wadamada Afrika adigu marka waxay dhowr iyo 30 wadan baa ka soo qayb galay marka Addis Ababa ku shirnay shirkii noo dhamaanaya baa habeenkii marka dhowr ku noqonayay kacaan kii militariga baa Soomaaliya qabsaday marka maalintii ugu dambeysay uu soo goonay waxaanu soo Italia baa ku soo noqonay marka dhalinyarada waxaanu lahayn markaas jamciyad aanu sameysteen oo Somali Engineers Architects Association marka Allah yarxamo waxa noo madax ahaa nin engineer aanu isku daahayn Ali Hussein Ismaan oo geeriyooday أنا وحنا سكرتري أنا وها مركز تهنئة بنو درنا كعانك association كها مركز اللي يردوا وحنا نسكر رأسنا ودنك أنت أوبدان وحلقوا شقية ياكو يغان محاتا غالقوا ما شقيو مركز وحنا كنا جاقبني إن لو وريقو
waxgaradka wax lagu siiyo dabcan waraysiga wuxuu ku saabsanaa saddexda qayb ee waxbarashadaadii koobaad Soomaaliya aad ku noqotood mashruucyo badan ka soo fulisay iyo adoo Mareykan dib ugu soo noqday hadda qaybtan dambe qaybtan waa kacaanku markii kacaanku qabsaday shaqooy dhalinyaro waxaa noo noqday secretary laga dhigay howlaha guud Cabdulqaadir Aadan Cismaan marka kacaanku markuu qabsaday dhalinyaro wadanka in loo shaqeeyo marka waxaa qof walba markaad ula timaadid ra'yi fiican ku dhaqaaq baa lagu oranaya marka howlahaasaa lagu dhaqaaqay shaqooyin dhowr shaqo anigu shaqooyinka aan ka qayb lahaa oo dee dad kula wadaago waxaa ka mid ahaa Hargeysa bridgekeeda Luuq Garaane bridgekiisa marka faa'iido kalena waa keenayo mashaariicda bridgeka waxay ga horeeyay bridgeka Afgooye iyo Balcad marka ay dhiseen mashruuca waxa la oran jiray Programma della Ponte della Somalia dowladda Talyaaniga baa ku caawintay in bridge Soomaaliya loo dhiso marka kuwa labada aan soo gaaray goorta dhismahoodii marka bridge mashruuc sameeyo contract la bixiyo wax lagu daraa wax la yiraahdo contingency waa lacag hadii loo baahdo lagu daraayo lagu kabayo hadan loo baahna dowladda ku noqonaysa marka mashaariicdaas bridge-ka Hargeysa iyo Luuq Garaane mid walba adigu lacag 100,000 ka badan 120,000 ilaa 150,000 baa ka soo hadhay lacagtii ka soo hadhay dhalinyarada Cabdulqaadir Aadan Cismaan iyo Ali Xaashiba Sheekh Cismaan wasiirka dabeeya dhalinyaro injineer bay ahaayeen oo lisaf garanayo marka ra'yi fiican ula timaadid ku dhaqaaq bay ku oranayaan marka daamur ama asfalt baan ku soo iibsanay jidadkii duug ah loogu kabayo laami sax laami marka dee hawlo badan waa lagu qabtay iska wuxuu qabso waa la balaabay dowladda dhaqaalaheedu waa yaraa laakiin dee ra'yi baa loo baahday maadaama marka dowladda iyo crash program sax maadaama kacaanka markaas aad u dirteen tahniyad hada association-kiina tihiin sidee bay idin اعترافين إذن كان فائديستين وحبضاً أو مهم مدام الدرك أدو هيسين عند سود ويسين مركز دركي غبصة أنا صدح وسير ونصوب مري عبد القادر أهدن علي حسين عثمان جنرال سالد قبيري صدح ذا صبا رأيي ودنك إيه وحلو قبطه مشروع وضع من أساسه وحقمنا إياه كل دقائق بورنيا عبد القادر آذن وجهري وزير كي هولها جود مركا كراش بروجرام بالسمية كراش بروجرام وودنك إن دق شقوي إن دقة لجو بلعبه وودنك حلوقته مركا جودي بالسمية جودي وحوها فايس بريزنت جامعة القرشير أنا جو كراش بروجرام كأوردينيتر حولها جود أنا عبد الله وفارح وحوها كأوردينيتر كبيرها شجع عليه الله يرحمه وكان ذا كله تدوان هذا كله دوان هذا كله تمان بقلي شجع حاج النور وحوها داق يحولها كراش بروجرام شنبقول أول قري أول بركة جدد لا مجرين لكن جدد كان لك باي مركا كراش بروجرام كا وحي تالكوها إسكاو حقب سو مشاريع دير اللي يرى أن ولا تقني وحكم إذا كراش بروجرام كا سيل يسول الشقيو بيرها يو حولها جود مركا لا تبور وكنال بيها كسوق هذا وهي شبيله أو إلى هالكبعات كسوق هذا جد كمركا هذا ومركا يو مقدش الحذاء مركا لان تبور
crash programka marka jidkaas markii biyo halkaas soo gaareen labada ducoodba jidka beeraha galeyda baa galeyda laanta buur kanaalkaas iskaa wuxuu qabso waan ku dhisay afgooye iyo Janaale waa 90 kilomitir webigu marka webiga labada dhinac la iskama gudbi kari jirin dhexdooda magaalo yar baa jirta lahda Awdheegle bridge Awdheegle iskaa wuxuu qabso waan ku dhisay jidkaas mashruuca boondada la saaray mashruuca boondada Awdheegle oo dhaxaysa oo webiga marka crash programka markii la bilaabay 500 lacagta loogu talagalay waxay ahayd 500,000 marka 500 qof hadaad qoratay alaabtii u baahnaayeen iyo kharashkii si isu bixiyaan marka nidaamka bariga jiray wuxuu ahaa in tender la bixiyo liis baad qornaysa waxaan u baahnay kambara tender lagu siinaya tenderkii laba qolo ka soo qayb gashay kii hoose wuxuu ahaa 730 marka lacagtan haystay waxay 500 oo kun bay ahayd marka waxaan u tagay wasiirka Cabdulqaadir Aadan waxaan yiri ana ku filaysiinayee tenderka hala joojiyo marka dadkii tenderka helay kii helay hoose baa iimo yiri de maxaa igu galaysa waxaan adeero shaqadayda saan u qabsan karo baan halka saahayno ahaato marka lacagtii 500 oo kun waa ku filaysay waliba lacag 100 kun baa soo haray marka nidaamkan ugu filaysay wuxuu ahaa alaabta 500 adigu 12 ilaa 13 qofba wax la gang waa koox ama group marka koox walba waa foreman iyo assistant foreman iyo qof kuuga oo karinaya cuntada oo karinaya iyo 10 shaqaale ah 13 kaas marka waxay u baahan yihiin laba taambog mid ay cuntada iyo alaabta dhigtaan iyo mid roobka ka galaan laba taambog waa loogu tala galay qolo walba waxay u baahnayd baan u qiyaasay marka waxa kamid ah 10 qof 13 qof digsi cuntada loogu kariyo marka qiimaha lagu soo qortay waxa manayaa 200 iyo 350 gartay buu ahaa oo laga keenayo gartay marka si loogu filaysiiyo daamurka aan foostooyinka daamurka ku keenayno baan soo qaatay marka daamurka laga dhameeyo waa goynaysaa laba dhagood oo samaynaysaa daamurka dhaqaysaa lacag la'aan buu ugu jooga mindiyaha butcher knife-ka waaweyn oo lagu qalaayo halkii waxaan leeyahay ilaa 40 shilin bay ahayd haddii laga keeno dibadda laga keeno marka 5 shilin baanu kaga tumanay isku raran waxaad gasheen qorsheyn marka wixii lacagtiina wadankii bay gashay lacagna uga soo gartay marka mashruucyada Soomaaliya aad ka soo fulisay waxaad go'aansatay inaad dib ugu soo noqoto dalkan Mareykanka dabcan dalka Mareykankana mashruucyo badan oo aad ka fuliseen baa jiray oo kamid ahayd waxa muhiim ah waxa arrimahan isku qabsanay waxa ugu waaweynaa nidaamkan la soo iibsanayo alaabtan soo iibsanayo iyo iska wuxuu qabso jidka marka lagu dhisay shaqaaluhu waxay qaadan jireen 200 shilin Allah yarxam Cabdulqaadir Dheel baan kula heshiiyey jidka marka iska wuxuu qabso dhismihiisa hadhowtana markii Cabdulqaadir Dheel kacaanka la qabtay Allah yarxamo wada dhintay hadeer Cabdulqaadir Dheel iyo Caynaanshe iyo Saraad Gabeere wasiir waa la bedelay waxaan ku Cabdulqaadir Dheel waxa ka qabsaday marka General Abshirkaahiye ku yiri Cabdulqaadir Dheel dhameeyay mashruucaas aan ku heshiinay ma si wada saa kula heshiis ku wad buu yiri marka heshiisku wuxuu ahaa dadka shaqaalahayga 200 oo shilin bay qaadanayaan kuma filna marka mushahara labaad in la siiyo shaqaalaha loo mushahar qaadanaya marka anigu lacag qaadan maayo leeyihiin
payroll baan u dhiibayaa isagaa shaqaalahaygii lacagta siinaya lacagta soo hadha dowladda kusoo noqon mayso howlaha guud liis baan siinayaa daamir alaabooyin iyo baabuur alaabtan u baahnaa ugu iibiyo marka saasaan lacag ku heli jiray marka dowladda lacag kama qaadan jirin marka mashaariicda saasaan ku wada jiray marka wasiirkeenu loo keenay baa yidhi lacagta aad mashaariicda iskaa wax u qabso aad ka helaysid keeni maayaan idhi marka bootikaa la ii diray hadhowtana waxa la ii diray airbortkan Kismaayo markaasaan goostay inaan Mareykan kusoo noqdo aad ka soo tagto shaqooyinka markii shaqooyinka iyo nidaamkan ku watay dowladdu lacag ma haysato marka waa inaan ku fikiraa sabab wax u helo aan shaqooyin ku qabsanayo marka haddii la dhexgeliyo Soomaalidu haddii nidaam loo sameeyo wax ku filan qofku u helo wax ku shaqeynaya gartay dabcan marka waxaad ku soo noqotay dalka Mareykanka waxaad fulisay mashruucyo badan New York baa kamida tunnelska ama labada nafaqe waaweyn waxyaalaha aad ka fulisay iyo mashruuci biyaha waxa kale sidoo kale jiri doona aan ka sheekeyn doona haduu Ilaahay yiraahdo markaad u gudubtay dhinacan iyo Washington DC 1979 sidoo kale Sacuudiga oo aad ka fulisay mashruucyo badan 1981 sidoo kale dalka Suudaan oo shaqo fiican ka soo qabatay sanadkii 1985 iyo waliba hawlo badan oo noocaas balse waxaan jeclahay qaybahaas oo waliba xiise gooni ah leh wax badan laga faa'iidayo in aan waraysiga qaybtiisa labaad ku soo qabanno qaybtan maantana aan intaas ku ekeyno biidnillah ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeyn lahayd barnaamijka Engineer Maxamuud waxaan ku soo gabagabeyn lahaa kacaankii waxyaabaha uu wadanka uga tegay waa jidadka laamiga ah oo jidka ah 190 kilomitir burco ilaa Garowe marka Mareykanka dhulkan wax lagu dhisaayo wax la yiraahdo feasibility study baa jira ama wixii inay isbixin karaan jidkaas xagga dhaqaalaha jid isbixinaya ma ahayn laakiin ummadda Soomaaliyeed in la isku xiro marka siyaasad ahaan baa loo goosay jidkaas wuxuu ahaa kaalmo dowladda Shiinuhu ay Soomaalida ku kaalmaysay jidad kale oo badan oo iga dambeeya jira anigu markii la bilaabay shaqada berbera Hargeysa kaas World Bank deyn leenu ku siiyay marka laakiin dhismaha si fiican looma dhisin oo dhibaatooyin badan oo la yimi saan maqlay marka jidadka laamiga ah waa dhaxal weeye inta badan haddii si fiican loo dhiso waxay u baahan yihiin adigu 10 sano ilaa 8 sano jidka daamirka ku muuqanaya waa basaasa marka saliida ku jirta ka baxda marka in dib loo saaro intuusan furfurmin marka jidkii waa service treatment marka jidkii waa raagaya marka waxaad moodaa in jidkaas intii ka caanku in shaqo weyn laga qaban marka waa dhaxal weeye in kuwaas in la dhaqaalaysto intay baabiin aad baa mahadsan tahay Engineer Maxamuud Axmed Faatax sida aad barnaamijkan wax qabadkaaga fiicnaa waxbarashadaadii iyo sidoo kale dadkii aad wax tartay iyo hadda wali u heelan tahay inaad wixii talooyin iyo tusaaleyn iyo taageero aad la taagan tahay inaad dadka ku anfacdo Allah kugu anfaco khayr badan ma ku rajaynayaa shukran barakallahu fiik daawadayaal barnaamijka qaybtiisa dambe aan ka dhawaajiyay aad u xiiso badan doono ayaynu idin sii doon doonaa balse maanta waxaynu ku ekeenaynaa qaybtan hore oo barnaamijka wacyi aynu ku soo qaadanaynay una inoogu marti ahaa injineerka inta markale hawada aan ku kulmayno waa anigu Maxamuud Dawladeen idinkaga tagay sidaas iyo fi amaanillah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh